هو شافيس waxa uu dhashay sanadii 1955 waxa uu ku dhashay magaalo kaga beegan caasimada Venezuela dhanka waqooyi waxa uu waxbarashadiisa ku soo qaatay caasimadii Venezuela waxa uu ku biiray ciidamada militariga si uu wax uga barto Chavez ayaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa madaxweynihii ugu muddada dheeraa ee dalka Venezuela waxa uu gaarsiiyay wadanka inta uu talada hayay horumar aad Hugo Chavez waxa uu soo galay maslaxa siyaasadda bishii Febraayo ee sanadii 1992 markaasi uu isku dayay inqilaab military markii uu ku guuldareystay ayaa la xiray Chavez fursad ayuu soo u helay markale markii si kadis ah loo siiyay inuu ka hadlo idaacadda taasi oo dad fara badan ay ka yaabisay askarigan da'da yar ee muujiyay muwaadinimadiisa 2 sano kadib markii uu xabsiga ka soo baxay waxa uu ka qayb galay doorashooyinkii wadanka ka dhacay taasi uu ku guuleystay fikirkii Chavez ayaa soo jiitay dad aad u fara badan oo u arkayay wadanka inuu haysto regime garmaqaata ah xilum madaxweyne Chavez ayaa lagu xusuustaa oo ahaa barnaamij ka bixi jiray TV-ga dawladda barnaamijka waxa uu u gaar ahaa madaxweynaha oo kaliya markii uu la wareegay xilka madaxweynenimada Venezuela Chavez waxa uu wax ka bedelay dastuurkii isaga oo wax ka qabtay xuquuqda dumarka iyo horumarinta shaqaalaha isaga wax ka qayb qaatay horumarinta shaqooyinka mucaaradkii Chavez waxa ay ku eedeyn jireen taageero inuu siiyo regimekii Libya Muammar al-Gaddafi shacabka dalka Mareykanka ayaa ka yaabay hadal ka soo yeeray Chavez oo ahaa in madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush uu yahay dameer George W. Bush, you are a donkey, Mr. Bush. Tú eres un cobarde. ¿Por qué no te vas a Irak a comandar tus fuerzas armadas? Es muy fácil comandarla desde lejos. Chavez ayaa sheegay sanadii 2001 in laga helay cudurka kansarka waxaana wixii waqtiga ka dambeeyay Chavez la waayay waxa la xiriira xanuunka haya Chavez ayaa ku geeriyooday da'da 58 jir